بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قناة إنها الشعب كأصحابتكم حرقات بعدين سلامنا أنا جاي صاحب بدي أحمد يا عبد الناصر أيا يقول هلية أو إنه ويد برنامج شيء أسلف الغنيني سؤال هذا أحمد عبد الناصر وادونا سيدا كور هي نبا لودان بري وحقاد أكعصني ميديا مركز إكتو جبر سوماليات أو ترتم أرض أكسر البشيء مركز قرار والبا ولا فلانقية مع الدولة والكهرش أنت محاكرة سعتان بسم الله الرحمن الرحيم aad baan idin salaamayna dadka ku xiran kanaalka indhaha shacabka soo dhawaadaan idin leenahay cabdifataax runtii horta nasro abukar cali waxay ka qayb gashay orodka jaamacadaha oo ay ka soo qayb galeen 100 dowladood 100 dowladood baa ka soo qayb galay 100 dowladood baa ka soo qayb gashay صح gabadhaasi dad badan baa falanqeeyay adduunkuna waa falanqeeyay هي marka la fiiriyo UK oo kale oo hadda aan joogno ولا فلانقية waa laga falanqeeyay laba newspaper baa ka hadashay صح maraykanka jariirada ugu codaareed baa iyadana falanqaysay هي siyaalo kala duwan baa gabadhan looga hadlay orodadana waa nagu yaraayeen annaga 100 mitir horta صح 400 800 1500 orodadaas fagaxda ah بين في سن iyo Soomaalida u badan tahay صح haddii aan dhinaca kale u leexdo gabadhani dad badan baa aad u soo jeediyey وصح laakiin aad ma laha gabadhu قول أدمنها waa gabar tigidkii iyo viisaheedii loo keenay oo la yidhi waad soconaysaa وصح sidaad ka warhaysaana cayaaraha fudud waxaa haysto habareerteed khadiijo خديجة وقبلها بالإرتد waa gabadha habareerteed وصح corruptionkana dee kama bilaaban madaxweynehenaba ku khudbeeyey oo yidhi aniga haddii madaxweyne aan ahay wiilkayguna muwaadin wey وصح gabadhayduna muwaadin wey wasiir kale maalin dhow la wareysanayana waad aragtay marka gabadhani aad ma laha visa iyo waxaa loo keenay iyo ticket airportka waa la geeyey ayadu isma geynin habaryarteed baa raacday ولا نصير دارنا habaryarteed kalena waa la socotay وي وسكو قصينا أحمد هذا الكلام قبل سبورتس هاي أو سبورت أوتو بري ما هي مسبا هي gabadhani ma ahayn qaab sportsba ma lahayn وصح weligeedna sports kama qayb gelin وصح for example markii ugu horeyso airportka ay ka baxayso la wareystay waxay tiri orodka 10 mitir baan ordaya هي waana 100 mitir أرض كلا صعود orodka loo socdo صح 10 mitir oroda yaan Soomaaliya ku matalayaa bay soo sheegtay مركي بحسي ترسل markay baxaysay صح airportka ka tiri وصح waxaa kaloo la yaab leh wasiirkii sportiska iyo agaasimihii oo airportka geeyey iyo safiirkii Chinese-ka iyo wasiirka caafimaadkana inkiray ciyaaraha hadal ilmaha kuma jiro وصح ujeeddada ka dambaysana haddii aan caqliba ilaahayna siiyaan baarno waxay ahayd gabadhan inay Yurub timaado باللوذي China markii laga soo tago ciyaaraha ku xigo haddaba ay tiri afkeeda ay ka sheegtay waa ka qayb galaya waa meel Yurub ka mid ah wey وصح kadibna ay sidaas Yurub ku joogto وصح برنامج كده بيساسوها haddii aan عبد الناصر عبد الناصر أنا السيد هارح قال أحمد runtii أنا حمسان شفته واحد هذا hadalkii sheegay gabadhan aad ma leh dadkaygu waa kala qabaa Axmed oo aad malo waxa way qof aan aqoon sporti iyo sporti meel u yaal ogeyn oo la iska keenay meeshii la yiri hayay gal gabadha kulay anu gabadha Soomaaliyeed aad uma hayo wax dhaliil oo aad aan u hayno male iyadu iskama imaantay sural soo gashatay kabay lagu ordaay dharkii lagu ordaay meesha kaliya intay karto hadana jaranjarooyin soo marin وصح mideeda kalena waxa way Soomaali hadaan ayaa waxaan isku eedeynaa
musuq maasuq baa kana warheedha dowlad kasta oo Soomaaliya timaada musuq maasuq bay leedahay haba loo kala bateen laakiin madaxweyne xasan sheekh afkiisa soo Axmed Sheekh saa yiri أنا سوي لك مواد ويلكيس ومواد هارون ويلكيس حق ولا إنه حقبته ويلكيس حق ولا إنه حقبته لكن waxaan rabaa inaan taas horta dooda ku xigta inaan ka dhigano dadka madaxda Soomaaliya ka ah caruurtooda kaalinka dawladda ay ka ciyaari karaan iyo waxa ay xuquuq u leeyihiin okay tan haddaan ku soo afmeero gabadhan say sheegtayba 100 mil loo ordayo ixtirtoon baan ordaya iyada iskhilaaftay markii hore run ahaantiina Soomaaliya uma leen maayo orod markii la dhaho heerka qof Soomaaliya uu ka gaaray caalamka qof ka gaaray waa yaryahay cabdi bila cabdi oo sharaftii ugu weyneed Soomaaliya historiga taariikhda soo galay ayaa jira waxaa kaloo jira shakhsiyaad Soomaaliya u dhashay oo wadamo kale u ordo sida wadankan hadda ku noolnaa kale ma farax oo ordo oo wadankan bilada uu keenay la ogyahay waa Soomaali badan oo Yurub u ordo way jirtaa oo kale iyagana bilada keenay taas wadamadaas u ordan laakiin shakhsi Soomaali calankii buluuga ah wan وعبد بلا شرفته وصومال وكان horta ma jiro xagga ciyaaraha fudud sportiga gabadhan anigu ma eedeynayo gabadhan haweenteed baa meesha ku soo buustay oo ma waxay laakiin hal arrin eegayna kama goyn hadalka Axmed Cabdinaasir maadaama haweenteed iyo gabadhan leeyahay dadkeedii dawladda ka mid yihiin waan ognahay dad masaakiin inay maalin walba leeman ibsadaan Yurub soo aadaan sumcaddii iyo magacii Soomaaliyeed waxay ku bedesheen hal gabadh in la soo dhoofiyo oo wali taariikh lagu soo dhoofiyo aan ku sheego dalkan wax walba wax burburan koob sagaashankii waasaas sumcad sheegaysa way burburtay qarannimo way burburtay wax walba way burbureen dawladda yartay hadda la soo dhudhuubay oo muqdisho ka jirtay madaxtooyada ku kooban maxayba sharaf haysataa iyadii gudaheedii baa isku nooc kala oo isku cunaa marka Soomaali sharaf uma taal waasaas Soomaali magaca Soomaali cid sharaftiisa raadinaysa ma jirto cid kasta danteeda iyo teeda eeganaysa waa anaga hadda 150 calan haysana maxaa marka sharafta Soomaali ay joogsataa waasaas waan ugu soo noqonaynaa Axmed adaa u tadalka Cabdinaasir dib aan ugu soo noqono programkeeni horta anu waxaan qabaa gabadhan record bay dhigtay adduunkan hore uga jirin waasaas oo dib orod la yiraahdo adduunkuna waana bartay maanta waasaas dadaan Soomaaliya aqoonin bay bartay صح magac baynu yeesh record bay sameeysan qabaa anu waasaas laakiin adduunweynuhu wuxuu arkay gabadhan inaysan sports ahayn musuq maasuq adduunka dhan baa ka hadlay waasaas aan mid yar ku dhexgeliyay inaan saaxiibanayo halkan aan ka salaamay salaad cali jalaal dhaa safiirka aad baan u salaamay salaad cali jalaal salaamina aad baan u salaamay wuxuu yiri anigoo ka hadlaaya gabar cadaan u sharaxayay inaan u sharaxo dalkan musuq maasuq ka jiro asaan waxaan yiri corruptionista way dawladdan joog ay u tiri corruptionista ma looters way tuuga way ninkaas waa nin serious aad baan u salaamay cadaalad waa salaamina halkan safiirka ka salaamaya waa salaamina okay barnaamijkan ha okay hay marka niman yahow gabadhaas gabadha aad ma leh iyo gabadhaas wax eeda aniga aan dakada uga saari karo shakhsiyan ma jirto waxa eeda iska leh wasiirkii wasaaradda sportiga haystay maba uu igu leeyahay labadiina su'aal idin weydiinaya marka way eedan yaa saari lahaydeen eeda wax saaraya anu haddaan soo hadalkii aan la gaban wasaaradda iyo maamulka iyo wasiirka yaa ku soo lahayd madaxweynaan saarayn dawlad baan saarayn meeshaan wasaarad kasta waxay iyada la gabanayso soma wasaaradda horta hawsha waxa iska leh wasaaradda sportiga iska leh shaqo ahaan laakiin wasiirkii halkaan noo soo fariistay wuxuu yiri hawsha aniga waxba kama ogeyn that means falaari gilgish kaaga wartaanayna wasiirka waa laga hoos guuray shaqadaadii baa laga hoos guuray laba qola iska leh wax yar inta dhex galo wax yar dhaqanka Soomaaliya ka jira ni sheegaya wasiirka aanu eedeynay laftigiisa waxa jira wasiirka dadka hooseeyo oo madaxtooyada ku xiran oo ka baawar badan wasiirkii wasiirka uu garaabaya mar waa runtii ma ogaan karo hataa waxa laga yaabaa qaraabo dhow inay madaxweynaha leeyihiin agaasimayaasha waxaan ka dambeeyay oo full power madaxtooyada ka haystaan Soomaaliya sideedana waa madax ka nool ma sax laakiin Cabdinaasir hadda routiinka baashan ay wareegaysay wasaaradda sportiga jaamacadaha Olympikada
بالولا ولي waxaa dadka xakumo waxaa laga yaabaa inay qaraabo dhow la yihiin madaxtooyada bila Soomaaliya oo wasiirkaba laga baawar badan yahay wasiirka sportska iyo olombikada labadaas inay soo maraan cayaaraha fudud wixii oo dhan ha oo iyagu ay og yihiin weeye labadaba dambiilayaal bay ku noqonayaan ha haddana sida aan warka ku hayno gabadhii waxay joogtaa Nairobi cayaaro kale oo fudud oo la qabanayo hadda visa ay u raadsatay oo Hungary ah jiro iyadoo magaca Soomaaliya matalaysa iyadoo magaca Soomaaliya matalaysa waa gudoomiye laakiin gabadha laftirkeeda may gudoomiyihii wey gudoomiyaha raadinaya waxaas gudoomiyihii baa raadinaya marka gabadha raadinaysa marka laga gabadhii iyo baanda ay wadatay iyadu umaleyn ma Axmed oo ayadana shaqadii waa laga joojiyey shaqa joojin baa lagu sameeyay hadda waa diiday laakiin ya iga qaad kartid iyada hadiido laakiin hadda shaqa joojin baa lagu sameeyay wada waxyaalaha idin leeyahay wasiirka waxa laga baawar badan yahay agaasimiyaal iyo waxa jirta madaxtooyada qaraabo la ah horta qof gabar meeshan ka hadlaysay oo la wareysanayay gabadhu ma gabadhii baa haymis gabar ka ahayd gabadhii bay ahayd ayadii baa ahayd hadda gabadhu waa geesiyad ma dhikan horta gabadhu horta aad bay geesiyadu waxay tiri anu waxaan aaminsanahay bay tiri Soomaaliya inaan magac u soo jiiday sax ma fahmi wala soo fadhidaa haye xagxagashada liga daayay وسلام عليكم نسري نسري ولا حاجه مينو لكن maamulkii meesha ka jiray ay xaqaashada laad wax xaqaasho malin waan ku soo intaas ku soo ururayna guul baa soo السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وين جماعه آدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كناك إنها الشعب كأصحابتك وحرقات بعدين سلامنا aniga iyo saaxiibaday Axmed iyo Cabdinaasir ayaa igu heliya oo in dhaweydba barnaamijyada isla falanqeynayay soo dhawaada Axmed iyo Cabdinaasir waa dhowna sida ka wareynaba labadan bari waxa aad u kacsanayd media markaad eegto gabar Soomaaliyeed oo tartan ord ah ka soo qayb gashay marka qolo walba waa la falanqeeyay macal dowladdu way ka hadashay arrinta maxaa kala socotaan بسم الله الرحمن الرحيم aad baan idin salaamayna dadka ku xiran kanaalka indhaha shacabka soo dhawaadaan idin leenahay Cabdifataax runtii horta Nasro Abukar Ali waxay ka qayb gashay orodka jaamacada oo ay ka soo qayb galeen 100 dowladood 100 dowladood baa ka soo qayb galay 100 dowladood baa ka soo qayb gashay sax gabadhaasi dad badan baa falanqeeyay adduunkuna waa falanqeeyay haye marka la fiiriyo UK oo kale oo hadda aan joogno waa laga falanqeeyay laba newspaper baa ka hadashay sax Mareykanka jariirada ugu codaareed baa iyadana falanqeysay haye siyaalo kala duwan baa gabadhan looga hadlay orodadana waa nagu yaraayeen anaga 100 mitir horta صح 400 800 1500 orodadaas fagaxda been haysan iyo Soomaalida u badan tahay صح haddii aan dhinaca kale u leexdo gabadhani dad badan baa aad u soo jeediyey laakiin aad ma laha gabadhu gabadheed ma laha waa gabar tigidkii iyo viisaheedii loo keenay oo la yidhi waad soconaysaa sidaad ka waraysaana cayaaraha fudud waxaa haysto habaryarteed khadiijo waa gabadha habaryarteed corruptionkana dee kama bilaaban madaxweynehenaba ku khudbeeyey oo yidhi aniga haddii madaxweyne aan ahay wiilkayguna muwaadin wey gabadhayduna muwaadin wey wasiir kale maalin dhow la wareysanayna waad aragtay marka gabadhani aad ma laha visa iyo waxa loo keenay iyo ticket airport waa la geeyey ayadu isma geynin habaryarteed baa raacday walaalo si dardaarmay habaryarteed kalena waa la socotay way iska gogoosanaynaa Axmed hadalka gabadhan sports ahayd oo sports u tababaray ma ahayd mise ma ahayd gabadhani ma ahayn qaab sportsba ma lahayn weligeedna sports kama qayb gelin for example markii ugu horreysay oo airportka ay ka baxayso la wareystay waxay tiri orodka 10 mitir baan ordaya waana 100 mitir orodka loo socdo 10 mitir oroda yaan Soomaaliya ku matalayaa bay soo
yay soo sheegtay markay baxaysay tiri markay baxaysay sax airportkay ka tiri waa saas waxaa kaloo la yaab leh wasiirkii sportiska iyo agaasimihii oo airportka geeyey iyo safiirkii chineska iyo wasiirka caafimaadkana inkira warkama hayo wasiirka ciyaaraha aqalilmaan kuma jiro waa saas ujeeddada ka dambaysana haddii aan caqliba ilaahayna siiyaan baarno waxay ahayd gabadhan inay yurub timaado waa loo waday china markii laga soo tago ciyaaraha ku xigo haddaba ay tiri afkeeda ay ka sheegtay waa ka qayb gelaya waa meel yurub ka mida wey waa saas kadibna ay sidaas yurub ku joogto waa saas programka dambe saas u ahaa haddii aan dhex gala axmedow runtii axmed saa u sheegtay waxaad mahdaa hadalkii sheegay gabadhan eed ma leh daftigeygu waa kala qabaa axmed oo eed malo waxaa waye qof aan aqoon sporti iyo sporti meelu yaal ogeyn oo la iska keenay meeshii la yidhi hayegal dee gabadha kolley anigu gabadha soomaaliyeed eed uma hayo wax dhaliilo eed aan u hayno male iyadu iskama iman intay sural soo gashatay kabihii lagu ordaayey iyo dharkii lagu ordaayey meesha keligeed ma tegi karto haddayna jaranjarooyin soo marin waa saas mideeda kalena waxaa waye soomaali haddaan nahay yaa waxaan isku eedaynaa musuq maasuq baa kana warheedha dowlad kasta oo soomaaliya timaada musuq maasuq bay leedahay haba loo kala bateen laakiin madaxweyne xasan sheekh afkiisa soo axmed sheekh saa yidhi aniga soo wiilkayga muwaadin wiilkiisu waa muwaadin waa run wiilkiisu xaq uu leeyahay inuu wax qabto gabadhiisu xaq bay leeyahay inuu wax qabto laakiin waxaan rabaa inaan taas horta dooda ku xigta inaan ka dhigano dadka madaxda soomaaliya ka ah caruurtooda kaalinka dowladda ay ka cayaari karaan iyo wax ay xuquuq leeyihiin okay tan haddaan kuu soo afmeero gabadhan say sheegtayba 100 mitir meel loo ordaayo xitir 10 baan ordaaya iyadaa is khilaaftay markii hore run ahaantiina soomaaliya u malayn maayo orod markii la dhaho heerka qof soomaaliya uu ka gaaray caalamka qof ka gaaray waa yaryahay cabdi bila cabdi oo sharaftii ugu weyneed soomaaliya historiga taariikhda soo galay ayaa jira waxaa kaloo jira shakhsiyaad soomaaliya u dhashay oo wadamo kale u ordo sida waddankan hadda ku noolnaa oo kale uma farax ba u ordo oo waddankan bilada uu keena la ogyahay waa soomaali badan oo yurub u orata waa jirta oo kale iyagana bilada keenay taas wadamadaasi u ordaan laakiin shakhsi soomaali calankii buluuga ahaa wan oo cabdi bila sharafta uu soomaali u keenay horta ma jiro xagga ciyaaraha fudud sportiga gabadhan anigu ma eedeynayo gabadhan hawareerteed baa meesha kusoo buustay oo maaqa waxay laakiin hal arrinaan eegeynaa kaama goynin hadalka axmed cabdinaasir maadaama hawaryarteed iyo gabadha laleeyahay dadkeedii dowladda ka mid yihiin waan ognahay dad masaakiin inay maalin walba layman iibsadaan oo yurub soo aadaan sumcaddii iyo magacii soomaaliyeed ma waxay ku bedesheen hal gabadho in la soo dhoofiyo oo wali taariikh lagu soo dhoofiyo aan kuu sheego dalkan wax walba wax burburan 1990 waa saas sumcad aad sheegaysa way burburtay qarannimo way burburtay wax walba way burbureen dowladda yartay hadda lasoo dhudhuubay oo muqdisho ka jirtay madaxtooyada ku kooban maxayba sharaf haysataa iyadii gudaheedii baaba isku nooc kale ah oo laysku cunaa marka soomaali sharaf uma taal waa saas soomaali magaca soomaaliya cid sharaftiisa raadinaysa ma jirto cid kasta danteeda iyo teeda eeganaysa waa annaga hadda 150 calan haysana maxaa marka sharafta soomaaliya ay joogsataa waa saas waan ugu soo noqonaynaa axmed adaa watada cabdinaasir dib aan ugu soo noqono programkeennii horta anu waxaan qabaa gabadhan record bay dhigtay adduunka aan hore uga jirin oo dib u orod la yidhaah adduunkuna waana bartay maanta waa saas dadaan soomaaliya aqoonin bay bartay yay bartay sax magac bay noo yeeshay record bayba samaysaan qabaa anugu waa saas laakiin adduun weynuhu wuxuu arkaya gabadhan inaysan sports ahayn oo musuq maasuq lagu keenay musuq maasuq adduunka o dhan baa ka hadlay waa saas aan mid yar ku dhex geliyan inaan saaxiibanahayo halkan aan ka salaamay salaad cali jalaal dhaha safiirka aad baan u salaamay aad baan u salaamaya wuxuu yidhi anigoo ka hadlaaya gabar caddaanan u sharaxayo inaan u sharaxo dalkan musuq maasuqa ka jiro aasaan waxaan inuu yidhi corruptionista waayo dowladdan
joog ay u tiri Haye. corruptionist ma Haye. Lutheris way tuuga waaye ninkaas waa nin serious aad baan u salaamaya cadaalad waa wey markaa waa salaamayna halkana safiirka ka salaamaya waa salaamayna okay barnaamijkan ha okay haye cabdilaahi marka niman yahow gabadhaas gabadha eed ma leh Fattax iyo gabadhaas wax eeda aniga aan dhakada uga saari karo Ma jirto. shakhsiyan ma jirto waxa eeda iska leh wasiirkii wasaaradda isboortiga haystay maba ogin buu leeyahay labadiinaan su-aal idin weydiinayaa marka waay eedan yaa saari lahaydeen eeda waxaan saaraya anu haddaan soo hadalkii aan la gaban wasaaradda iyo maamulka iyo wasiirka yaa kuu soo laday madaxweynaan saarayn dowlad baan saarayn meeshaan wasaarad kasta waxeed iyada la gabanayso soo ma wasaaradda horta hawshan waxaa iska leh wasaaradda isboortiga iska leh yes ha shaqo ahaan ha laakiin wasiirkii halkaan noo soo fariistay wuxuu yidhi hawsha aniga waxba kamaan ogeyn that means falaari gilgilisha kaaga martaanayna wasiirka ha waa laga hoosguuray laba shaqadaadii baa laga hoosguuray laba qolaa iskale dambiga wax yar in ka dhex galo wax yar dhaqanka Soomaaliya ka jira ni sheegaya wasiirka aanu eedeynay laftigiisa waxa jira wasiirka dadka hooseeyo oo madaxtooyada ku xiran oo ka baawar badan wasiirkii waa saas wasiirka uu garaabaya mar waa runtii ma ogaan karo hataa waa saas waxa laga yaabaa qaraabo dhow inay madaxweynaha leeyihiin agaasimayaashii waxaan ka dambeeyay waa saas oo full power madaxtooyada ka haystaan Soomaaliya sideedana waa madax ka nool ma sax laakiin Cabdinaasir hadda rootiinka bahashan ay wareegaysay wasaaradda isboortiga jaamacadaha olombikada olombikada baa lagula wareegay waxaa dadka xakumo waxaa laga yaabaa inay qaraabo dhow leeyihiin madaxtooyada bila Soomaaliya oo wasiirka laga baawar badan yahay wasiirka sportska iyo olombikada labadaas inay soo maraan cayaaraha fudud wixii oo dhan ha oo iyagu ay og yihiin weeye labadaba dambiilayaal bay ku noqonayaan ha okay haddana sida aan warka ku hayno gabadhii waxay joogtaa Nairobi cayaaro kale oo fudud oo la qabanayo hadda visa ay u raadsatay oo hangeli ah jiro iyadoo magaca Soomaaliya matalaysa iyadoo magaca Soomaaliya matalaysa waa gudoomiyihii laakiin gabadha laftirkeeda may gudoomiyihii wey gudoomiyaha raadinaya waxaas gudoomiyihii baa raadinaya marka gabadha reertana jirta marka la gnaa gabadhii iyo baanda ay wadatay iyadu umaleyn ma Axmed oo ayadana shaqadii waa laga joojiyey shaqa joojin baa lagu sameeyay hadda waa diiday laakiin ya iga qaadi kartay iyada ha diido laakiin hadda shaqa joojin baa lagu sameeyey wada waxyaalaha idin leeyahay wasiirka waxa laga baawar badan yahay agaasimayaal iyo waxa jirta madaxtooyada qaraabo la ah horta qof gabar meeshan ka hadlaysay oo la wareysanayay gabadhu ma gabadhii baa haymis gabar kale ahayd gabadhii bay ahayd ayadii baa ahayd hadda gabadhu waa geesiyad ma dhihi karna laftirkeeda horta aad bay geesiyadu waxay tiri anigu waxaan aaminsanahay bay tiri Soomaaliya inaan magac u soo jiiday sax ma fahmi waa la soo fadhidaa haye xagxagashada liiga daayay waa salaamina gabadhu nasray aad baan u nasray wala xaga mayno laakiin maamulkii meesha ka jiray ayaa xagxagashada laad wax xagaashan malin waanu ku intaas ku soo urureynaa guul baan Soomaaliya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا جمعة